بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركل أرضية سوسنا قد ونكسن جبتر كيني لبعض مادة بيولوجيا جبتر كhealth and disease أو كسبسن عذر هذا إياه عافيماتك جبتر كاني طبعا وحوك كوبية هاي لبا قيبود أو كلاء قيبت كوباد أو common disease إنه كبرن دونا 10 كينا مانتا iyo qaybta labaad oo ah immunity habka difaaca jirka iyo sida uu cudurrada isaga caabiyo aynu ku baran doono cashirkeena labaad hadduu Ilaahay idmo common disease cashirkeena koowaad ee ku saabsan cudurrada guud waxaanu ku baran doonaa dabcan markuu dhamaado kadib ardayga wuxuu awood u yeelanayaa in uu qeexi karo erey bixinta maxaa la yiraahdaa health maxaa la yiraahdaa disease wuxuu kala sooci doonaa oo kala garan doonaa cudur iyo caafimaad sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu barto cudurrada guud gaar ahaan kuwa ay sababa bakteeriyada sidoo kale viruska iyo funguska iyo protozoaha wuxuu kale awood u yeelan doonaa ardayga in uu kala sooco uu kala qaybiyo uu kala saaro farqiga u dhaxeeya cudurrada faafa iyo kuwa aan faafin haddaynu ka hormarno cashirkeena koowaad oo ah common disease cudurrada guud waxaan marka hore isweydiinaynaa waa maxay caafimaad what is health define health caafimaadku waxaa lagu qeexaa in uu yahay xaalad uu qofka ka badqabo uu caafimaad qab uu yahay xagga jirka maskaxda iyo xag bulsho haddii uu qofka jirkiisa caafimaad qabo balse uu maskaxda ka jiran yahay waxaan u garanaynaa inuu xanuunsan yahay health can be divided health waxa lagu qeexi karaa is a state waa xaalad of complete si dhammaystiran qofka uga caafimaad qabo bodily jirka mental maskaxda and social iyo well-being iyo uu qabo badqab bulsheed mid maskaxeed iyo mid jireed haddaba haddaynu garanay caafimaad waa inaynu garanaa lidkiisa ee ah waa maxay cudur disease cudurku is any disorder waa xaalad kasto khalal kasta ku yimaada in physically xag jir ahaan mentally xag maskax ahaan and socially iyo dhan bulsho ahaan isbeddel kasto that changes isbeddel u keena the normal functioning of the body xaaladda caadiga ahayd ee uu ku shaqeynayo jirka isbeddel ku keeno xaalad kastaay oo ku keento isbeddel in uu bini aadamka jirkiisa isbeddelo xag maskaxaan isu beddelo sida caadiga ah u shaqeynaya ayaa la yiraahdaa cudur haddii cudur lama dhihi karo qof gacan ka go'ay ma dhihi karno waa cudur cudurku waa inuu yahay qofka xaalad khalal ku yimaada physically mentally social intaba waa yahay cause the most common disease in human waxa ugu badan ee bani aadamka cudurrada ugu badan ku dhaco waxyaabaha sababa waxaynu u kala qaybin karnaa can be categorized can be classified into 4 categories afar qaybood ayaynu u kala saareynaa cudur dhaliyayaasha waxay noqon karaan waxyaabaha inuu qofka bani aadamka cudur ku dhaco meelaha uu ka imaan karo ma aan cudur dhaliyayaasha meelaha ay ka imaan karaan in ay dhacaan common disease-ka bini aadamka ku dhacaan waxaa keeni karo living organism waxaa keeni kara noolahaas oo ah microorganism ama microbe noole ilmaaragta ah maxaan ka wadnaa microbes noolaha ilmaaragta waxaan ka wadnaa virus waxaan ka wadnaa bacteria fungus and protozoa marka ay xaaladda noocaasi ay sababaan iyagu waxaynu ku tirinaynaa categoriga la yidhahdo living organisms ayaa sabab u ah mar kale in common disease oo bini aadamka ku dhaco waxaa sababi karo nutritional factors isiro la xiriira dhanka cunnada nafaqada tusaale ahaan waxaa ku dhici kara deficiency of some nutrients for example iron deficiency ayaa qofka ku dhacda waxaa u imaanaya cudurka la yidhahdo anemia vitamin C deficiency ayaa ku dhacay waxaa imaanaya cudurka la yidhahdo scurvy waxay xaaladda labaad ee lagu categorize karo cudurrada waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah nutritional factors kan saddexaad waxaa keeni karaa in common disease ay bini aadamka ku dhacaan chemical factor xaalad ay sababtay kiimiko jirka soo galay tusaale ahaan like pesticides sida cayayaan dilaha oo kale
iyo chemical pharmaceuticalska daawooyinka laga qaato pharmacy-ga ayaguna way keeni karaan qodobka ugu dambeeya waxaa keeni kara in common disease ay dhacaan physical factors factor dibadda ka saameeyo sida shacaaca radiationska ayaa keeni kara ama heat kul waa ku dhici karo waxyaabahaasi ayaa noqon karo physical factorska keenayo in common disease ay dhacaan waayahay annagu waxaan daraasayn doonaa qaybta ay sababaan living organisms qaybta ay noolaha ilma aragtaha u sababo most of common human disease inta ugu badani cudurrada common disease-ku are caused by waxaa sababa microorganisms noole ilma aragta ah loo yaqaano microbes such as sida virus bacteria protozoa iyo fungi hadday afartaasi mid ka mida u sababo waxaynu gelinaynaa khaanada ah living organismska kuwa ay sababaan waana kuwa aynu daraasaynayno haddaba microorganismska nooleyaasha ilma aragtada that cause disease ee xanuunka inagu sababa known as waxaa loo yaqaanaa pathogens ama germs cudur dhaliyayaal haddaan garanay cudur inuu yahay xaalad jirkeenna sidii la rabay aysan u shaqaynin maskaxda iyo xag bulsho aynu sheegnaa caafimaad haddaba cudurku intee loo qaybiyaa types of disease cudurku waxaynu u qaybinaynaa labo maxay kala yihiin labadooda kow infectious disease way badan yihiin waa soo koobaynaa in badanoo loo qaybo kala duwan oo badanoo loo qaybi karaa laakiin haddaan soo koobno waxaa loo qaybi karaa infectious disease cudurrada faafa iyo non-infectious disease cudurrada aanan faafin communicable disease and non-communicable disease non-communicable disease waa yahay infectious disease iyo non-infectious disease waa inaynu kala ogaanaa maxay ku kala duwan yihiin cudurrada faafa waxaa sababa pathogen aan hadda soo sheegnay mid ka mid a ama bacteria sababi karta ama virus sababi karo ama fungus sababi karo ama protozoa sababayo pathogens cudur dhaliyaal ayaa sababi karo disease causing microorganisms non-infectious disease iyagu waxaa sababa specific factor oo waxaa dhici karta qayb ka mida jirka in sidii la rabay u shaqayn weydo tusaale pancreaska ayaa wuxuu soo daan waayay hormoonka la yiraahdo insulin deficiency-gaas awgeed qofka waxaa ku dhacayo xanuunka la yiraahdo diabetes marka isku mid maaha infectious disease waxaa sababa pathogen non-infectious disease-kana ma sababo sidoo kale infectious disease-ku waxay ka faafaan ay ka gudbaan from person qof to another qof kale ay u gudbaan laakiin non-infectious disease do not spread cannot spread ma faafaan oo qof intay ka baxaan qof kale uma gudbaan qofka qaba diabetes-ka qofka la joogo kuma uma gudbinayo kuma faafinayo waayahay infectious disease-ku markaan fiirinayno inta badani concern of society bulshada ayay aad saameyn badan ku yeelataa oo hadduu cudurku yahay infectious wuxuu saameyn ballaaran ku yeelanayaa bulshada oo dhan non-infectious disease cudurrada aanan faafin ee aan ahayn cudurrada faafinna waa ay gaar ku yihiin about individual shakhsiga qofka ayay keligii saameyn ku leeyihiin shakhsiga qaba xanuunka diabeteska macaanka saameyntiisa isaga ayay ku ekaanaysaa ee bulshada la ku hareeran uma gudbinayo tusaale haddaan soo qaadano cudurrada faafa iyo kuwa aanan faafin ama cudurrada gudba iyo kuwa aanan gudbin waxaa ka mid ah cudurrada gudba AIDS xanuunka AIDSka TB oo laga soo gaabiyey Tuberculosis macnaheedu yahay qaaxada and cholera iyo daacuunka ama caloleedka tusaale waxay u yihiin xanuunadani kuwa faafa ee hadday dilaacaan bulshada ku dhex faafayo tusaale waxaa inoo ah xanuunada aanan faafin sida kansarka ee qofka shakhsiga qabo kaliya ayuu saniskiisa unugyadiisa ku faafayaa xanuunana u geysanayaa balse bulshada qofka kansarka qabo uma gudbinayo qofka kale ee la jooga waxaa la mida diabetes macaanka waxaa kaloo la mida anemia dhiig la'aanta ama dhiig yarida intaasi waxaan ku kala fahanay arday in cudurrada gudba iyo kuwa aanan gudbin ayaan dhahnay farqiga u dhaxeeya inuu yahay kuwana waxaa sababa cudur dhaliyaal kuwana ma sababaan kuwa way faafaan oo way gudbaan qofkay ku gudbaan kuwana ma gudbaan bulshada ayay saameyn weyn ku yeeshaan kuwa infectiouska ayay ku dhex faafaya non infectiouskana shakhsiga individualka ayay saameyn ku yeeshaan tusaalana waxay nooga cad shaashada cudurrada ka muuqdo waayahay haddaynu usoo gudubno haddaba aan isweydiino fahanay cudur iyo caafimaad wax la kala yiraahdo iyo noocyada cudurka haddaba xanuunka waxyaabaha sababay habkay ku faafaan habkay ku gudbaan hababka ugu weyn ee cudurrada ku faafaan ay ka gudbayaan
hoostiga martigeliyaha qofka xanuunka qabaay ayna u gudbayaan qofka kale ee caafimaadka qabaay waxay noqon kartaa through air iyagoo u marsiinaya hawada oo jeermiska xanuunkaasi dhaliya ayaa wuxuu ku faafayaa marka uu qofka qufaco ama hindhiso air droplets dhibcaha yaryar ee biyaha ah ee la socda qufaciisa ayaa waxa qaadaya hawada kadibna wuxuu sababayaa qofka caafimaadka qabay inuu xanuunkaasi gaaro cudurrada noocaasina waxay caan ku yihiin magaca ah airborne disease cudurrada ka dhasha ama lagu kala qaado hawada cudurradaasi tusaale waxaa inoogu filan common cold hargabka and tuberculosis iyo qaaxada waa ay badan yihiin mid walba ay markaan sharaxayno ayuu noo soo geli doonaa habka labaad ee xanuunka uu ku faafaay waxaa ka mid ah through physical contact in si toos ah cudurrada qaar waxay ku faafaan istaabashada physical contact waa istaabashada xanuunadaasi maqaarka qofka ayaa waxa uu taabanayaa cudur dhaliyihii such disease xanuunada noocaasi ah ee ku faafa through contact istaabashada with the skin maqaarka ee uu taabanayo qof xanuunkii qabaay waxaa loo yaqaanaa contagious disease cudurrada ku faafa istaabashada waxaa ka mid ah qawidka waxaa ka mid ah cambaarta iyo wixii la halbaala cudurrada qaar waxaa gudbiyaa ayuu ku faafaa iyadoo loo marsiinayo insects cayayaan ayaa gudbin karo jeermiska ayaa waxaa qaadayo cayayaan insect kadibna insectigaasi isagoo noolihii ka jaqaya ama ka qaadanaya qayb ka mida dhiigga jirkiisa ayaa wuxuu uga tegayaa jeermiskii uu xambaarsanaa cudurrada noocaasi ah ay sababaan insectiga kuwaasoo daadsack blood dhiigga jaqa waxaa loo yaqaanaa vector-borne disease waxaana ka mid ah malaria duumada oo mosquito kaneecada gaar ahaan midda dhadiga ah anophiliska la yidhaahdo ayaa waxa ay jaqaysaa dhiigga qof infected ah ee xanuunka qaba waxayna u imaanaysaa qof healthy ah caafimaad qaba kadibna waxay uga dhex tegaysaa dulinka dhaliyo malariada ee la yidhaahdo plasmodium taasoo dhibaato u keenaya sidoo kale waxaa ka mid ah cudurrada insectiga ay faafiyaan typhoidka tifoga hababka ay ku gudbaan waxaa ka mid ah through water biyaha cudurrada qaar ayaa biyaha ku gudbo oo qofka markuu cabo drinking water oo ah contaminated with face of or urine biyo wasakhaysan leh saxaro ama kaadi qof xanuunkii qabay ka yimi kuwaasina waxay noqon karaan biyaha inay usoo gudbaan isha ay u marayso xanuunkani waxaana loo yaqaanaa waterborne cudurrada ka dhasho biyaha waxaa ka mid ah cholera iyo dysentery waayahay cudurrada waxay ku gudbi karaan through food cunnada cudurrada ku gudbo cuntada waxaa ka mid ah choleraha cudurradaasi qofku wuxuu cunayaa cunto contaminated ku ah with face of infected people dad xanuunkii qaba saxaradooda ee duqsi wax la mid ay soo qaadeen cunnada u keenay kadibna foodka ayuu u gelayaa habkaasina waxaa la yidhaahdaa cunnada cudurrada ku faafa through sexual contact waxay noqon karaa galmada inay ku faafto cudurradaas galmada ku faafa waxaa ka mid ah aidiska iyo syphiliska xabadda ama jabtada waxa la yidhaahdo haddaynu u gudagalno cudurrada bacteriada sababta waxaa ka mid ah cholera waxaa sababa serious disease xanuun halis ah ee sababta bacteriada la yidhaahdo vibrio cholera magaceeda geniska iyo species namekeeda waxaa la yidhahdaa vibrio cholera waa nooca bacteriada sababto choleraha calaamadaha qofka qaba cudurka daacuunka waxaa lagu yaqaanaa in uu qofka la imaado shuban waliba shuban biyo ah oo aan ku tilmaami karno rice water marka bariiska la qasaalo biyaha laga miiro ee khafiifka ah qof shuban caadi ka yimaado ma dhaheno astaamahaasi cholera muujinaya waa inuu qofka ka yimaadaa shuban ama rice watery biyo ah oo gaar ahaan marka bariiska la qasaalo biyaha ka imaanaya astaanta labaad aynu ku garan karno qofka inuu xanuunkani daacuunka qabaayo waxaa ka mid ah dehydration inuu qofkani fuuqbax vomiting matag ama hunqaaco weakness inuu qofka tabardarri ku dhaco daciifo skin become wrinkled in jirkiisu uu jactado uu maqaarka ku dhago eyeballs are sinking godka indhahu ku jirana inay gudaha galaan ay makhurtaan oo qofka indhihiisu meel fog ka soo muuqdaan astaamahaasi haddaynu aragno waxaynu garan karnaa in xanuunka cholera uu qofkaasi hayo haddaba sideen uga hortegi karnaa xanuunkaasi waxaa looga hortegi karaa in si hagaagsan la isaga duugo saxarada meel hagaagsan la geeyo iyadoo musqulo gaara loo sameynayo meelo gaara lagu manage garaynayo sidoo kale
waxaan uga hortagi karnaa washing hands inaynu gacmaheena dhaqno after visiting toilets and before a meal suuliga markaynu ka soo baxno kadib inaan gacmaheena ku dhaqno saabuun ama dambas wixii markaas awood u leenahay ama oomo iyo sidoo kale gacmaheena inaan dhaqno before a meal intaynan cunin ka hor inaan si fiican gacmaha isaga dhaqno sidoo kale xanuunkani waxaan uga hortagi karnaa drinking water biyaha la cabayo should be boiled waa inaan iska karkarinaa or ama chlorinated aynu ku darnaa chlorine sidoo kale xanuunkan waxaa looga hortagaa qofka inuu ku dadaalo nadaafad qabka shakhsiga ah good personal and environmental hygiene waliba nadaafad qabka shakhsiga iyo kan deegaanka mar kastoo aad naftaada nadaafadda shakhsigaada ku dadaashid waxaa ka hortag ku noqonaysaa in xanuunkan uu kugu dhicin xanuunkan waa waliba periodically waa cudurrada dhaco xilliyada roobabka waxaynu mar walba ku dadaalaynaa nadaafad qabka shakhsiga iyo deegaankeena xanuunka labaad waxaa la yidhahdaa typhoid typhoidku waa cudur halis ah ay sababto bacteria kowskiisu waa bacteria gaar ahaan bacteriada la yidhahdo salmonella typhi bacteriada gaar ahaan la yidhahdo salmonella astaamaha lagu garan karo xanuunkani waxaa ka mid ah madax xanuun headache fever qandho muscular pain xanuun dhanka murqaha ah sore throat cuno xanuun diarrhea shuban loss of appetite inuu qofka cunadii ka xirmo appetite ka xirmo haddaba haddaan astaamahaasi aragno xanuunkani waxaynu uga hortagi karnaa preventionkiisa muxuu noqonayaa si aynu uga hortagno waa inaynu sidoo kale proper disposal of face and urine waa inaynu saxarada iyo kaadida meel habboon ku duugnaa sida musqulaha suuliyada waa inaan la aadnaa oo bannaanada aanan la dhigin sidoo kale washing hands gacmaha la dhaqo after visiting toilet or before meal cuntada intaan la cunin ka hor iyo markii suuliga loo soo baxo gacmaha la iska dhaqo sidoo kale fruitiska inaan la cunin iyagoo sidaas ku soo gadatay ah wash fruits and vegetables qudaarta iyo fruitska intaba waa inaad iska dhaqdaa before eating intaadan cunin drinking water biyaha la cabayo gaar ahaan cagadaha aynu biyaha ku shubanno waa in intaanan biyaha kale la keenin la dhaqaa mar kale iyagoo chlorine lagu darayo ama biyaha la iska karkariyaa xanuunkaasi waxaanu u gudbaynaa xanuunka saddexaad ee bacteria sababto magaciisana la yidhaahdo tuberculosis qaaxo tuberculosis ama TB waa cudur ka mid ah cudurrada bacteria sababta ee halista ah waxaana sababa bacteriada la yidhaahdo Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis astaamaha lagu garto xanuunkani waxaa ka mid ah qufac joogto ah oo qofka qufacayo waliba sidoo kale chest pain xabad xanuun sidoo kale xaakadiisa oo ay la jirto dhiig ama qayb ka mid ah laga helo weight loss inuu miisaankiisa qofka hoos u dhaco fever xumad sidoo kale loss of appetite inuu qofka cunada ka xirmo astaamahaasi markaaynu ku aragno waliba gaar ahaan chest pain iyo persistent cough qufac aanan kala joogsi lahayn iyo dhiig aynu ka arkayno ka xaakada ama candhuufta qofka xanuunkani qaaxada la yidhahdo sideen uga hortagi karnaa in caanaha la iska karkariyo pasteurization of milk in la karkariyo caanaha gaar ahaan cow milk sidoo kale waxaan uga hortagi karnaa vaccination tallaal sidoo kale waxaan uga hortagi karnaa dadka xanuunkani qaba waa inaynu u sameynaa goobo u gaara isolation quarantine in lagu sameeyo of patient bukaanka xanuunkaasi qabo trachoma xanuunkani trachomadu isaguna bacteria ayaa sababto waxa uu ka dhacaa indhaha chlamydia trachomatis ayaa sababta waxa uu ku faafaa in qofka uu si toos u taabto indhihiisa ama xiribaha indhaha ama sankiisa ama qayb ka mid ah qof xanuunkaasi qaba material uu isticmaalay shukumaan facility ama wax la mid ah uu soo isticmaalay hadduu si toos isaguna indhihiisa u mariyo waxa uu xanuunkani qaadaya astaamaha lagu garto xanuunkani waxaa ka mid ah indhaha qofka ayaa waxaa ka soo baxaya mucus hab daaf irritation cuncun indhaha ayaa cuncun sameynayo sidoo kale cornea ilxayda ama muuqaalka aragiisa ayaa wuxuu noqonayaa mid mugdi uga jiro aragga ayaa ku yaraanayo waxaa looga hortagi karaa improve sanitation qofka inuu nadaafad qabka ku dadaalo avoidance of direct contact inuu iska ilaaliyo contact inuu si toos u taabto with infected person qof xanuunkii qabo isolation of patient in la karantiilo xanuunka bukaanka qabo sidoo kale in laga fogaado avoid sharing items in qof xanuunkaasi qabo aan la adeegsatid qalabkiisa xanuunka shanaad ee bacteria sababta waxaa ka mid ah gonorrhea xanuunka la yidhaahdo xabadda ama jabtada xanuunkani waxaa sababa bacteria la yidhahdo Neisseria gonorrhea wuxuu ku faafaa
galmada habkii hore ku war waxaan soo sheegnay cuntada inay ku faafaan kan wuxuu ku faafaa cudurrada ku faafo galmada ayuu ka mid yahay astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah labaan u kala qaadaynaa labka iyo dhadiga in male markaan labka joogno xanuunkani gonorrhea waxaa lagu garan karaa burning wuxuu dareemayaa sensation xanuun on passing urine qofka markii uu kaadida ka imaanayso waxa uu dareemayaa xanuun sidoo kale discharge of pus from penis xubinta daranka ayaa waxaa ka soo baxayo malax xanuunka astaamahaasi ama xanuunkan gonorrhea may cause sterility waxay u keeni kartaa in uu noqdo qofkaasi madalays oo dhibaatadaas ayay keensan kartaa waxaa kaloo ka mid ah pain in joints xanuun inuu ka dareemo kala goosyada dhadiguna waxa ay astaameeda ka mid ah ee lagu ogaan karaa pain in lower abdominal ubuucda qaybta hoose ee jirka ayaa waxay ka dareemaysaa xanuun arrintaasna waxay sababi kartaa sterility madalaysnimo waxaa kaloo lagu ogaan karaa astaamaha menstrual cycle dhiigga caadada ayaa daadaad not normal sida caadiga ama noqonayo xilli aan la filanayo iska imaanaya mar walbo normalnimada ayuu ka baxayaa astaamahaas waxaan ku ogaanaynaa qofkaasi inuu leeyahay sidoo kale nabara ayaa ka muuqan karo xubnaha taranka prevention ka hortag sideen uga hortegaynaa avoidance inaan ka fogaano of illegal sexual galmada xaaraanta ah ee rabbi xarimay cudurka lixaad waa syphilis waraabowga ama isfiilatadu cudurkani waxaa sababta bacteria la yiraahdo Trachoma pallidum wuxuuna ku faafaa isaguna galmada astaamaha lagu ogaado xanuunkani waxaa ka mid ah rashes on hands feet and palms in ay dhibco ka soo muuqdaan gacmaha iyo calacalaha sidoo kale dhibco cadcad inay ka soo muuqdaan afkiisa xanuun xumad waxaana looga hortegi karaa avoidance in isagana laga fogaado of illegal sexual galmada sharci darrada ah sidoo kale qofku inuu ku dadaalo good personal hygiene nadaafad qabka shakhsiga waxaynu dabcan u gudbi doonaa qaybteena party 2ga qaybta labaad ee cashirkeena common disease cudurrada guud ee ku dhaca bani aadamka